الرحمن الرحيم. halkan maanta waxaan ka hambalyeeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland guushii uu soo hooyay ee ahayd wada hadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu wada hadlay Djibouti. guuluu ka soo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland annaga oo ahayn dadweynaha maanta taageersanaa qadiyadda Soomaaliland iyo goonistaankeeda ahayna dadkii taageerada maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland taagnaa ee soo dhaweynay wadada taagnaa waxaan leenahay madaxweyne Ilaahay kula garab galo guusha aad u soo hoysay Soomaaliland waxa taariikh qaran waxa tahay madaxweyne Ilaahay dalkan iyo dadka baa u doortay Ilaahay baa ku doortay Alle ku doortay kula guuleeyay mid kalena waan leeyahay oo waan uga faa'iideysanayaa cadawga reer Soomaaliland horta madaxweyne adigu maanta dee warkaaga uu cadaayo dadku aad iyo aad ay u qashooyeen waxaan u qashooyeen qodadaadii aad ka horjeedisay dadweyne dadkii caalamkii hor fadhiyay dawladda Djibouti Ethiopia Europeankii iyo dadkii hor fadhiyo dhan waxa weeyaan tacaawumada taageerada ugu muhiimsan ama qadiyadda Soomaaliland ee madaxweyne gooni isu taagtay aniga oo ah Xaliimo Taar Xirsi oo ah dal mujaahid ina tahar dhagoole waxaan leeyahay madaxweyne Ilaahay ku garab galo waan maanta hambaliyo waan kugu hambalyeynaa taageerada fiican ee isla ka garab taagay waxa kale oo halkan ka hambalyeynaa mucaaradka reer Soomaaliland ee indhaha ka xidhanaya guusha uu soo hooyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahay garabkiisa ha galo adowgiisana ha jabiyo waxaan leeyahay war qadiyaddan ma aha qadiyad ama goonistaanka Soomaaliland ma aha mucaarado tu'ad macaaridaan ee waa tu'ad taageertaan calankan ma aha calan ciyaar ku yimid waa dadkii khudbadii madaxweynaha ay ku jirtay in wadankan dhiig naf iyo maalba loo soo huray ragna naftooda ku waayeen hooyana ku gablantay ragna ragoodii dadkoodii maalkooda ku waayeen oo dhiig iyo dheecaan buu dadkan ku fadhiyaa dheer ku fadhiyo nimankan mucaaradka xalay TV-ga ka hadlay ee lahaa yaa la isu soo bixin yaa dadka isu imanin yaa wada ninkan xogaya xisbiga wadani ee ka xunay saaka guriga madow hurda aqal madow ma hurda annaguna iftiin baan hurda ilaa xalay ilaa saaka iyo ilaa shalay iyo shanta cisho madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan Djibouti joogay waxaan waanu dabaaldegayna farxad baan ku jirnay hadaan mujaahidiintii aslan dadkii ay dhaleen iyo dadkooda ku madhay dalkan naf waaye farxad baan ku jirnay iyo dabaaldeg oo ma naaseexan xalayto ma naaseexana sidii waagu noogu bariisaano guriyayga u dhex fadhinay waagu markii bariina banaanada aan soo dareernay waxay waa guushii dadkii wixii dadkaygu soo dhinteen ay u dhilafta u waayeen ay maalkooda u waayeen ba maanta iftiinkiisi aanu haynaa waanu dadna way gami waayeen oo farxad bay la seexan lahayn dadna guri madow bay xalay u hoydeen reer Soomaaliland oo waxay ka xun yihiin qadiyadda iyo goonisitaaga iyo guusha madaxweynaha Soomaaliland ayay ka xun yihiin oo halkii farmaajo aqalkii madow xalay seexday ayay qaar Hargeysa gudaheeda ku seexdeen iyo Soomaaliland gudaheeda kuwaana waxaan leenahay Allah idin bogsiyo idin caafiyo oo Ilaahay caafimaad ha idin siiyo wadanka waa loo soo halgamay calanka Soomaaliland waa muqadas xornimada waa la keenayaa Ilaahay iyo reer Soomaaliland iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa keenaya Ilaahayna noogu soo dhiibay ummadda islaamka noo soo saaraysa اعترافه iska imanaya Soomaad garan qaaxa markaan joognay habli fanaaniinta ee salaamta heeseen waxay yiraahdeen war hooy dalku uu xiray war hooy istaba qabo dhiiga daadanaya dabkana lagu soo shiday wax inta aad ka damin leed ninka daawanayo dalku uu xiroobiye war hooy istaba qabo inan baa ku heestay waxaan ku leeyahay reer wadaniyo xornimada dalka waa la helayaa dalku uu ictiraaf buu helayaa xornimo goonistaag buu helayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo adna aadan Ismaaciil iyo madaxda reer Soomaaliland wasiir ilaa golo baarlamaan iyo golo gurtibay xornimada Soomaaliland gacanta ku taabayaan waana la helayaa Soomaaliland xornimadeeda waa muqadas Ilaahay raxmaanka raxiimkiisa dhaxsanaha uga soo dhigo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland guusha uu gaaray Ilaahay ha soo rumeeyo maanta waa ictiraafkii waxaan idin leeyahay waxinta ka qaban lahaydeen dhiiga daadanaya dalku xoroobi war dalku calanka waa la helayaa xornimadii way qaadanaysaa Soomaaliland waa la ictiraafayaa wax yar baa ka haray war dalka raaca ictiraafka iyo himilada Soomaaliland iyo hanka Soomaaliland raaca kalaara faas baa tiraad xalay waxaad ku soo daysay YouTube kan ka daawanay ama aan ka dhageysan adigoo la xogay xisbiga cudur raac jirey ha isu soo bixina Sacuudiga lahaa cudurna ma jiree dawladdu way ku maxaabsanaysaa lacag baa lagu doonayaa ma maanta markii madaxweynaha Jamhuuriyadda uu guusha soo hooyay ayaa leedahay cudur baa jira ee kala hoyda xaasid iyo xume ka xun guusha Soomaaliland soo hooyatay xaasid baa tahay farmaajo la barooranaysa farmaajo la ooyaysa guri madow xalay gashay guri madow ku jirtaa
dadka reer Somaliland way dabaaldegeen bari iyo galbeed farxad bay ku dabaaldegeen madaxweynaha si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay waana u taagneen habeen maalin maanaan soo seexanin xalay maanu seexan adoo aqal madow baad seexatay annagu aqalkaygu leerkaba kamaanaan baqtiin uu noo baxayay waana u taagneen waana u dabaaldegay ما نها مدحوينات جمهورية الصومال waa madaxweyne qaranka ilaahay baa inoo doortay anagu waan ilaahay ayaa doortay oo kaaga hiiliyay adiga Cabdiraxmaano iyo xogayaa xisbiga wadaniyo ilaahay baa idinka hiiliyay ilaahay baa Muuse doortay ciidana dooratay adna ciida ku diiday oo ku nacday ciidana way dheerada way arag dheeray oo waxay arkaysaa inaad hog iyo hodimo ku ridayso haddaan aanad hog ku ridahayn guusha Soomaaliland ay mar walba soo hoyatay madaxweynuhu hor kacayo كم مدحوينه هراي نصومالي سافرتي مدحوينه هراي بدل بقول بو كان بدل بقول بو سوهي بوش هو استوسع الطاي هدو ما أنت موسى شنتي سنة دمعتنا متكرر يرسل سومالي أنا كوريو بوش يدوم بو كيني هذا بعضو بوش سومالي بعد قحون تهاي حقيقة ورقد على بوش اللي عبد الحليم بوش اللي بكرة السنة عدين شري بعضنا لهاي كلارا فارس ما تشيله حكومة ويكون محافظة نسا ما أنت واحد من لا هاي كلارا ما تشيله كلارا تشيله dadku haday ma dhaam xukuumadda la weydiinaya waryaanu marano waxba ay naga harin waanu dabaaldegayna waanu isu soo baxnay qadiyada Soomaaliland waa muqaddas mar saddexaad baan ku celinaya waxaan ku leeyahay qoxontiga markii la joogay nimanka halgamaya qaarna daqiiqad iyo fartada ku jireen qaarna halgamayeen ayayna muraaqootay waxa artay rag dagaalkii ku jiro xabadii iyo dhaawac iyo dhimasho bale iyo nin jiniifa joogo daqiiqadii jiiday nin tuulaha garaabo ku cunay inantii waxay tidhi hees bay tirisan waxay tiri war ninka dhiga daadanaya ninka daawanaya dalku uu xoroobiye war ha istaba qabo hadaba waxaan ku leeyahay tan waa la itiraafkeedina daaqad saaran ma fahamtay hadaba adigu deewu istaba qabada baan ku leeyahay dalkaaga dhinac ka raac oo Soomaaliland way xorowday intaad kalba ifriq ku adamaysad YouTube ka soo galinayso kalaana tire waxaan madaxweynuhu wada waa beeraha u soo bixin aad leedahay war madaxweynaha kursiga ku fadhiyo ee la doortay dadweynuhu doortay adiguna aad mucaaradku ku tahay iyo kala saar qadiyada Soomaaliland iyo calanka Soomaaliland dhiiga ku fadhiya kala saar oo kala soo madaxweynuhu waa jumhuriyadda Soomaaliland معارض بعض معارض أنا waxaan ku aragnay inaan madaxweynaha macaaradeen kursiga macaaradeen dalkan aad hokor waday oo ku waday Soomaaliya ee farmaajo sababtaas taas aan noo cadnaanta waa ka xuntay qadiyada Soomaaliland waa ka xuntay jiritaanka Soomaaliland waa ka xuntay guulaha ay soo hooyeen xukuumadda iyo madaxda hogaaminaysa mid kale halkan jooga ka salaamaya eedadii adna aadan Ismaaciil guul baa ku ogeey cimriga Allah ku dheereeyo caafimaadka Allah ku siyaadiyo waxaad u halgamaysaa oo ma tiin xilka ma hayso Soomaaliland wasiir ma tiin golo baarlamaan ma tiin golo waxa tahay Soomaaliland u halgamaysa dadkeeda iyo dalkeeda raadinaysa itiraaf adna itiraaf gacantaada ku jiraa gacanta ku soo qaad baan ku leeyahay adagu ha jabo adagu Soomaaliland ha jabo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh